soddon sano ayaa magaalada Muqdisho dhibaato ku jirtay. soddon sano ayaa la qarxinay. soddon sano maamul la'aan ahayd. soddon sano aysan maqaam iyo maamul u gaar ah iyadoo aysan helin. marka xilligan dadka dhulbaantay ugu doodaya inay maamul samaystaan arkila soddon sano dhibka meeshan ka jira ee haddana hawiye sheeganaya ama ganacsade ahaado ama siyaasi ahaado ama hal doolar ahaado ama si kala ha sheegto dameer xumay u tahay. horta kow xisaabta Soomaaliya wax looga qaybsado ee hawiye iyo daarood waa qaldamay marka koowaad. laba maamul goboleed oo daarood ahaa dhisan, laba maamul oo hawiyana waa dhisanta. marka inta gobolka Banaadir ay maamul noqee horta nimankan SSC sheeganaya ama qaatoon sheeganaya ama dhulbahantal ha sheegtaane maamul sifadaas kuwad kuma heli karaan. xamar oo soddon sano dhib ku jirtaan maamul helin idinkoo laba bilood banaanka taagtaagan inaad maamul dhisataan rabtaa iskeeni meeyd. qodob waay. qodobka labaad oo marka ugu daran oo dhulbahanta uusan maamul ku samaysan karinin waxa weeye hal sano dhulbahanta meel isku raaca lama soo ogaan. waa taariikh qoran dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaatay maayo waxaysan ahayn uga sheegi maayo. hadda taariikhdooda dib u raac 2005 2006 ninkan xaglitoosiye la yiraahdo asoo soddon tiknika oo marna Puntland u galay marna Soomaaliland u galay taariikh qoran waa. haddeertan haddii ma taqaanaa dhaxad soo gala meesha waa kala tagayaan ee weli ma taqaanaa jeebkan la furin. soddon sano dadkii dhibanaayaan marka maamul helin idinku marka xilliga inaad maamul heshaan taasuna sax ku noqomee. marka haddaad saddexdaas sifo oo isla socota adnaan maamul ku heli saddexdaas qodob mid la dhaafi karaa aysan jirin haddaadnaan maamul ku helin dhulbahantu inaad xilligan isbaabi'idaan oo dad idinka dhinto oo dad idinka dhaawacmo oo maxay dhaatay maatadii ilmihii iyo carruurtii bannaanka iska tuban yihiin xigmadda ku jirtaa maxay tahay. soo idinkagama habboona inaad raadisaan si sulx iyo maslaxo aad ku noolaataan inaad raadisaan oo systemkaad uga tirsaneedeen kula heshiisaan soo danta idinku qasbi mayso. runtu waa qaraar tahay laakiin runta waa idin sheega intaas oo sababood inta mid kasta isdul taagtaan haddaad dhulbahanto maskaxdiin u shaqaydo saddexdaas sababood oo mid la dhaafi karaa aysan jirin ayaadnaan maamul ku helaynin. saas daraaddeed marka haddaadnaan maamul ku helin haddeer ha isrinjikicnin ha baabi'inin haddeer ilaa waxaa lagu baaba'aa shay salkiis ama ciribtiisa maxay ahayto nasri uu ka imaanayo. ismaqal wanaagsan saaxiibayaal xilli kastoo idiin tahay habeen wanaagsan dadkii habeenka u tahay dadka ay maalinka u tahana maalin wanaagsan. muuqaalkan hadduu ku soo gaaro Lexar haddaad maaragtay sii faafi kartaa sii faafi saaxiibadii inaad kamid noqotana aad iyo aad mataqaanaa farxad igu tahay. waxaan rabaa marka inaan ku bilaabo sida ogtiin gobolka Banaadir wuxuu ka mid yahay gobolada Soomaaliyeed ayuu ka mid yahay. dad 4 milyan ku dhow ayaa ku nool soddon sano ku dhawaadna dadkaas ma helin maamul iyo nabad waarta ma helin. waxaan rabaa marka dadka ka soo jeeda oo ama siyaasiyiinta hawiye ganacsatada dhaqanka iyo qof kasta wax galaba waxaad moodaa inay iloobeen dadkaas dhibaatooyinka ay ku jireen soddonkii sano la soo dhaafo. saas daraaddeed marka waxaa la rabaa wixii iyagu ay heli karaan maal maskax muruq inay ku bixiyaan maxay gobolka Banaadir. dhulbahante oo 2 bilood dagaal ku jira haddii la isku dardaro dadka ka dhintay uusan 300 dhamayn xamar xaafadda ugu yar ama qaraxyada ugu yar alyoomka ay caad u helaan dadkaas xaafad kamida ka dhaca 2 bilood waxa laas caanood ka dhacay ma dhama. marka goormay dhibaato is soo arkeen dadkan dagaal ku dhibci iyo mataqaana xaggaas u taagan yihiin ku aadi soddon sano ayaa magaalada Muqdisho dhibaato ku jirtay. soddon sano ayaa la qarxinay. soddon sano maamul la'aan ahayd. soddon sano aysan maqaam iyo maamul u gaar ah iyadoo aysan helin. marka xilligan dadka dhulbaantay ugu doodaya inay maamul samaystaan arkila soddon sano dhibka meeshan ka jira
ee haddana hawiye sheeganaya ama ganacsada ahaado ama siyaasi ahaado ama hal doolar ha ahaado ama si kale ha sheegto damiir xumay u tahay dadkan nimankan la yidhahdo marka dhulbahante maamul ayagu ay leeyihiin inay samaystaan oo hadda halgankan ay ku jiraan dhammaadkiisa inuu noqonayo maxay ahaato maamul inay samaysan karaan dadkuna isweydiiyaan waay marka anaa idinkaga jawaabaya maamul ma samaysan karaan saddex sifana uma samaysan karaan waa saddex qodob uma samaysan karaan horta kow xisaabta Soomaaliya wax looga qaybsado ee hawiye iyo daarood waa qaldamay marka koowaad laba maamul goboleed oo daaroodaha dhisan laba maamul oo hawiyana waa dhisanta marka inta gobolka Banaadir ay maamul noqee horta nimankan SSC sheeganaya ama qaatoon sheeganaya ama dhulbahantalan ha sheegtaane maamul sifadaas kuwad kuma heli karaan xamar oo 30 sano dib ku jirtaan maamul helin idinkoo loo bilood banaanka taagtaag inaad maamul dhisataan rabtaa iskeena meed qodob way qodobka labaad oo marka ugu daran oo dhulbahanta uusan maamul ku samaysan karinin waxa weeye hal sano dhulbahanta meel isku raaca lama soo ogaan waa taariikh qoran dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaatay maayo waxaysan ahayn uga sheegi maayo hadda taariikhdooda dib u raac 2005 2006 ninkan xaglirtoosiye la yiraahdo asoo 30 tiknika oo marna Puntland u galay marna Soomaaliland u galay taariikh qoran waa haddeertan hadii ma taqaanaa dixad soo gala meesha waa kala tagayaan ee wali ma taqaanaa jeebkan la furin 30 sano dadkii dhibanaayaan marka maamul helin idinku marka xilliga inaad maamul heshaan taasuna sax ku noqomee waxa saddexay marka maamulka hadda idinku aad ama daarad wada sheegta ama harti wada dhaxda ee Puntland ma ogol yahay inaad idinku maamul samaysataan ee dhulbaanto Puntland iyo Majeerteeniya isku dar dagaalka laascaanood sababtii u galeena waxa weeye inay idinka soo jiraan dadka la yiraahdo maamulka waxa la leeyahay Soomaaliland marka aad oo idinka soo jiro idin ogolaan maayo inaad maamul samaysataan inaad fahamtaan al rabaa wuxuu idinkaga soo jiray oo dagaalka uu galay oo qabiilada loo kicinayo oo ama daarood ama harti la yiraahdo inuu isagu idin maamulo way ma ahan inaad maamul samaysataan ma xisaabta ugu ma jirto marka hadda saddexdaas sifo isla socota aanan maamul ku helay saddexdaas qodob mid la dhaafi kara aysan jirin haddaanan maamul ku helin dhulbaanto inaad xilligan isbaabi'idaan oo dad idinka dhinto oo dad idinka dhaawacmo oo maxay raatay maatadii ilmihii caruurtii banaanka iska tuban yihiin xigmadda ku jirta maxay soo idinkaga ma haboona inaad raadisaan si sulx iyo maslaxo aad ku noolaataan inaad raadisaan oo systemkaad uga tirsanayeen kula heshiisaan soo danta idinku qasbi mayso runtu waa qaraar tahay laakiin runtu waa idin sheega intaas oo sababood inta mid kasta isdul taagtaan hadda dhulbaanto maskaxdiinu shaqaydo saddexdaas sababood oo mid la dhaafi kara aysan jirin ayaanaan maamul ku helaynin saas daraadeed marka haddaanaan maamul ku helin haddeer ha isriin jikicnin ha baabi'inin haddeer ilaa waxaa lagu baaba'aa shay salkiis ama ciribtiisa maxay ahayto nasri uu ka imaanayo laakiin hadda halganaad ku jirtaan dagaalaad ku jirtaan maxay ahayto isheeg waxa uu arkaysaan inaad hadda wax samay kartaan laakiin duruufahaas idinku gadaaman waxna ma samay kartaan ma waxa maanta suurtagal noqon karta gobolka Banaadir oo maamul goboleed noqonin in SSC ama qaatumo dhulbahantalan in maamul la siiyo miya shaqeyn karta ma waxa shaqeyn karta in maamulka Puntland oo inta idin toontaa oo maamul idin dhiso dawladda federaalka ka gado miya shaqeyn karta mise dhulbahanta isku raaci kara inuu hal jiha yeesho saddex saabood aan mid mataqaana la gudbi kara uusan jirin waay waxa idin la gudboon marka hadda isbaabi'inina arrin jikeenina ilmaha iska leynina banaanka ilmaha iyo caruuraha ka soo xareeya si maslaxa oo nabadeed ah oo aad wax ku heli kartaan oo systemkaad ka tirsaneedeen aad wax ula qaybsan kartaan gooba laakiin wada kale haddaad rabtiin inaad sii furtaan
saddexdaas wada idinku gadaaman mid dhaafi kartaana male ma furmayso laakiin haddii meesha maqaayada dad ku shida maqaayada dad shidanayo lacagtaas banaanka dadka banaanka jooga xiiqsan oo lacagaha iska soo daldalaya haddii rag maqaayad meesha ka shiteen oo maalinba meel la abuurayo shuruuc la abuurayo waa ka garaabeynaa lacag waa qaadasho laakiin wax qabad meesha ma yaal inta maqaayadaasna intay sii shidnaa kartaan aqaana waa inta xaaladdu ay cusub tahay way oo ay hadeertaan 3 bilooda la wadaa gooja caddo magaalada korkeedana lama tegin ee lama socdaba marka wax kasta oo aan dhab ahayn na ma soconayaan intii raban ba gaaraan marka waxaan idin kula talin lahaa walaalayaal oo idin soo jeedin lahaa hadeertaan waxaan isleeyahay inta hadda uu socday dagaaladan ay socdeen haddii la isu geegeeyo 300 ma dhama dadka idinka dhintay ka badan ha sii dilinina marka ka badan ha sii dilinina magaalada muqdisho ama gobolka banaadir 30 sano dowlad la'aantu ay jirtay 2 milyan dadka badan ku dhintay ilaa haddana ma aysan helinin maamul iyo maqaam ayadoo u gaar ah ma aysan helinin sidee marka dhulbaantu idinku marka ugu fakarteen idinkoo 2 bil iyo 3 bilba ma taqaanaa aan ka badnayn kacdoonkiin dadka in ka dhintayba 300 aysan dhamayn dee la isku geegeeyo inaad maamul goboleed ku hamidaan waxa waaye sax ma magaalo xamar ka dulqaad badan ama magaalo ka adkaysi badan iyada iyo dadkeedaba la soo heli maayo 3 bilood hadda idinku aan umaleyn hadii u badato inaad jirtaan saddexdaas hadeertaan ma taqaanaa waxa idinka baxa iyo sida maaragtay oo alwasaadaysan iyo sida maaragtay u tahaysaan ayaa laga joogi laay uma maleynayo marka in had 30 sano inta iska dhaaftid oo iska dhaaftid 15 sano oo 10 sano iska dhaaftid oo 1 sano iska dhaaftid waxa waaye sanad kale Brexit 3 bilood kala hadeer kuma sii dari kartaan marka de adkaysana sidaas ka tihiin dulqaadna sidaas ka tihiin dadnimana sidaas ka tihiin marka waxa la rabaa in maskiina dantiisa qoon aalunaare inaad dantiina aqoonsataan oo meesha maslaxadiina ku jirto ku noolaa kartaan inaad isku raacdaan intiina badan anaaba ogow dhulbaantu dhan meel isku raaci maaye aad u maasantiin